بسم الله الرحمن الرحيم meeshan waxaan rabaa inaan kasoo jeediyo war kooban oo ku saabsan sidee aad ku heli kartaa inaad samaysid wax ku xiiso geliya haddii tusaale ahaan oo kaleeta aad haysatid 20 daqiiqo sidee ku heli kartaa waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo la yidhaahdo war maxaan u samaynayaa wax xiiso geliya waxaad u samaynaysaa wax ku xiiso geliya haddii wax ku xiiso geliya dadka wax ku farxad geliya oo ku xiiso geliya waxa bani aadamku uu raadiyo waaye marka maba u baahnaba cudurdaar qofka inuu qabto wuxuu jecel yahayna haddii cudurdaar maba u baahnaba wuxuu taas uga fakanaya waxyaabo badan oo fiicnayn oo laakiin macaan inuu ka tusaalahaan oo kale nabiga daawud calayhi salaam waxaa yidhi kaana yuxibu alcamal shaqadu jeclaa marka waxaad raadinaysa waxaa waa inaad heshid shaqa aad jeceshahay inaad suubisid marka firaqa leedahay aad ku bilaabaysaa hadda see marka ku heli kartaa waxyaabaha aynkaas oo kaleeta marka xeer waxaa jira la yidhaahdo bugaagta xisaabta markaa kala furtid aadan bog walba oo ka mid a bogagga xisaabta aadan ka weynin oo la yidhahdo xeerka isla egta waxay la mid yihiin waxaan equal sign yusaawi ayaa carabiga lagu dhihi jira haddaan xasuusto waa kalimad oo maaragtay aadan xisaabaadka ka weyneyn waayo maxaa marka aan kasoo wadaa waxay tahay marka waxaa bilaabaysaa 20 daqiiqo wax allaale iyo wixii kugu soo dhacaa ayaad sheegaysaa waxaa xeerkaas ayadana la yidhahdaa cilmi nafsiga laga adeegsadaa waxaa la yidhahdaa free association la yidhahdaa adoon kala soocaynin kala hayb soocaynin wax allaale wixii kugu soo dhacaa ayaad sheegaysaa 20 daqiiqo haddaad iska duubi kartid waa khayr kabacdi si aad dib isugu dhageysatid waxaa marka allaale wixii kugu soo dhaca markaad sheegtid ayadoon kala hayb sooc lahayn oo free association oo la dhahaa ururinta xorta ah waxaa dhacaysa inay kugu soo dhacaan wax xiiso leh waxaan xiiso lahayn iyo wax labadaasba u dhexeeya oon la garanaynin xeerkaasaad marka adeegsanaysa aan soo sheegno oo xeerka isla egto oo dhahaya wixii xiiso leh waa wax xiiso leh wax xiiso leh waxay la mid yihiin wax xiiso leh wax xiiso leh yusaawi wax xiiso leh wixii aan xiiso lahaynna waxay la egyihiin waxaan xiiso lahayn wixii intaas u dhexeeya oo aan la garanayninna waxay la mid yihiin waxaan la garanayn therefore marka wixii aan la garanaynin iyo wixii aan xiiso lahayn labadaba waa ka tegaysaa waxaad dabagelaysaa wixii xiiso leh waxay ku geynayaan meel xiiso leh marka daawo oo kaleeto waa arrintan in la xasuusto waay daawadan waxaa la yidhi markaad cuntid daawada waxaa loo cunaa inaad ku raysatid waxa xiiso lehna hadda waa ku daaweynayaan bardu marka daawada markaad cuntid daawada adigu waxaad u cunaysaa inaad ku daawowdid aad u cunaysaa fantaan malaynaa laakiin waxyaabo kale ka dhalan kara oo la dhaho side effects oon loogu talagelin laakiin ka dhalan kara oo wanaag iyo dhibaatada isugu jira saasoo kaleeto qofku markii uu shaqo uu xiisaheeda u qabto waxyaabaha ka dhalan kara oon marka hore ujeedadu aysan ahayn ujeedadu wax xiisa leh inaad samaysid waxaa ka dhalan kara waxa waaye inaad wax baratid waxaa ka dhalan kara inaad ma aragtay shaqadaas sababo la xiriira xiisaha aad u qabtid iyo ku celcelinta aad ku celcelinaysid awgeed inaad mumaarasaad fara badan suubisid ama jimicsiyo fara badan aad suubisid taasna ay ka dhalato inaad ku fiicnaatid samaynteeda therefore markaas aad awood u yeelatid dad fara badan uga fiicnaatid qabashada shaqadaas therefore haddaad xoogaa ma aragtay aad xikmadaada iyo caqli aad isugu geysidna aad kala soo dhexbixi kartid wax adigina wax ka taraya dadweynihiina wax u taraya dalka soomaaliyeedna wax u taraya soomaaliya maanta waxay u baahan tahay iyo caalamka oo dhan wuxuu u baahan yahay dad shaqo fiican qaban kara diinta islaamka markaa fiirisidna iimaanka waxaa ku xigta wacaamilu saalixaati shaqo fiican shaqada fiican maaha keliya midaad ilaahay ku caabudaysid oo masaajidka iyo arrimahaas khusaysa ee midaad adduunka ku hagaajinaysid dadka gaajada iyo maaragtay fakhriga looga saarayo bini aadamka maaragtay loogu adeegayo caafimaadkooda iyo ammaankooda iyo waxooda dhan howlahooda dhan ayay daraysaa marka xeerkaas aad adeegsanaysaa waxaad ku fiicantaad helaysaa waad suubinaysaa kabacdi waxaad ka fikiraysaa waxaan marka sidee adigana wax kuu tari karaan dadweynahana wax u tari karaan ujeedada koowaad laakiin waa wax xiisa leh ood amin dheer samayn kartid waa shaqada loo baahan yahay in shaqo fiican la qabto waaga loo baahan yahay in shaqo fiican la qabto waa waqti aad u dheer therefore taasaan marka rabay inaan dadweynaha la wadaago qaab loo mari kara marka waxaa kamid ah qaabka la yidhahdo mind mapping ama mantus book waxaa jira uu qoran la yidhaahdo Tony Buzan qofkii ingiriiska yaqaana akhrin kara carabiga in lagu turjumo oo malaynaya marka arrimaha aynkaas oo kale isku duburidan kartaa markaad 20 daqiiqo fasax leedahay waad samayn kartaa waxyaabaha kaaga soo baxana waa la soo socodsiinaysaa haddii aad rabtid aad iyo aad u mahadsantahay